بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحكوت المامية isagoo sifaadka dadka alle jecel yahay ee muuminiinta dhabtaa ka warramaya. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. آيات كان إلهي سبحانه وتعالى وحاو كسفين يا أدومها الرحمن ونسبة التشريف إلهي أدومه يسون نسبيي. عباد الرحمن من العبد إني كتمي أو من عابد إني كتمي لبدك لك كينبا واسكمد. أدومها إلهي سبحانه وتعالى الرب عابده الرحمن كلو سفيي لو تيريي وحصفدو ذا كواد إلهي كتلمامي الذين يمشون على الأرض هونا وكوردلك الصعدة سيدقن الصعدة قفك مشيديسو أما صعد كيسوحو كترجما عما في ضميري. قفك متواضع عقابه صعدة قفك إسلوي نسيبه صعدة مشيدو صعد كوحي كترجم تابالا هذا قفك إيادق مديس أما أخلاقيات كيس في نفسه دولك مركو صعدة قف إسلوين ماها يعرف قدر نفسه كوي هيبو قرنيا إنه مخلوق من بني آدم نطفة مهينة لقى أبوري ما قال كيسونا جاري يعيد ونقون دونه إنه يهيبو قرنيا، ولذلك لا يتكبر، يعرف نفسه. وأمر لبات يعرف خالقه، ربي يجيبو قرنيا عظمة ديسة يوين ديسة دفتنا ويسردوا اللقايا يسردوا اللقا سوحو كانيين وعابده وسجوده. إلهي مركا وحكوت الماما يا مخلوقنا كما كبران خالق أكتيسنا ما كبران لبدا الصفات مدنا ملهبا إلهي الماما سبحانه وتعالى. ولذلك با إلهي سبحانه وتعالى وحامانا يا آخرك واللي بينينيين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تاسوا دارت آخرة با إلهي إليه دارت آخرة وحلوغو طلق ليبا إلهي إليه للذين لا يريدون علوا في الأرض كوان دولك كوركي سيسكو كبرينين اسكو أوينين فسادنا الربين با إلهي سبحانه وتعالى. أما دادك دولك كوركي سكو كبراه وأهل النار إلهي وحليه ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. دولك كورس عني با إلهي إليه أدقو مرحة كان waa kibirsan waayo dhulkana jeexi maysid baa ilaahay yidhi buuraana gaadhi maysid mahma aad isqaadqaado iswaaweynaysid dhulkana waxba yeeli kari maysid baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala. qof kasta oo isla weyn ama jidhkaa dhismay oo waa isla kibirsanyey ama waxoogaa aqoon uu barto waa isla kibirsanyey ama in hantiya adduun uu helo waa isla kibirsanyey أما وحوغا وقروح بطه ويسلا كبرسي أيا كانت وحا إنو كبركو كلفي هالنقطة وحا ربي كنت المامي على سبحانه وتعالى دتك كبرسن وحا إلهي لي لولك آير صعدا لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لقمان نوح لا ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. dadka markaad la hadlayso ismaroorin baa la yidhi walaa tusacir khadak adigoo iska weynaysiinoo ka sii jeesanaya alla hadle dhulkana ha soconin baa la yidhi adigoo kibirsan. in allaha laa yuxibu kulla mukhtaalin fakhuur. wiilkiisa yaraa uu la talinayay wuxuu ku leeyahay sababtan sidan kuu leeya waa maxay ilaahay ma jecla mukhtaalka iyo fakhuurka. almukhtaala waalkhuyalaa inta badan في الأفعال بكدعة من جر ثوبه خيلاء
يعني iswaaweynida ficilka ku dhacda inta badan ayaa lagu tilmaamaa qofka sameeya mukhtaal ta aqwaasha ka dhacday faanka ku saabsana fakhri baa la yidhahaa fakhuur faan ilaahay ma jecla buu yidhi ka iswaaweyneeye faanka badan leh rabbi ma jecla subxaanahu wa tacaala waa sifaduu nebi moxamed leeyahy calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu iljannata man kaana fii qalbihi mihqaalu daratin min kibar jannada ma galo qofka qalbigiisa in darro leeg dhuuri casa leeg waxa u yar leegoo kibiri uu ku jiro janno ma galo saxaabadii way yaabeenoo waxay idhaahdeen ninbaa wuxuu ku yidhi ina arajula yuxibu an yakuuna thawbuhu xasan qofku wuxuu jecel yahay maradiisu inay qurux badan tahay wa nacluhu xasan kabihiisuna qurux badan yihi dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha jamiilun yuxibu aljamaal ilaahay subxaanahu wa tacaala waa qurux badan yahay jamaalka quruxdana waa jecel yahay kibirka aan sheegayaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam laba sifo oo tawaaduca cagsigoodiya buu ku sheegay batru lxaq waa xaq oo la diido xaq oo qofku ka santaago waa kibirka ugu weyn idan tawaaduca ugu weyni waa maxay waa xaq oo qofku uu isu dhuldhigo oo u dulloobo oo uu aqbaloo raaco waa aslu tawaaduc halkaasu ka bilaabma ka labaadna buu nebigu yidhi waqamti nnaas dadkoo la yaso oo layska weyneeyo tawaaduca qaybtiisii kalena waxay ahayd markaa dadkoo aan layska weynayna laysu dhuldhigo tawaaducu sidiisuba waa qofka oo aan isla weyni muujinin walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam xaqa oo la diido iyo dadkoo layska weyneeyo kibirku sifa insaanku uu helo ee uu kayrkii kaga roonaadana inaanay kibir ku kordhinin yacni nicmada ilaahay shukraa laga qaadaa dhaqanka muslimka waa kaa laakiin kibir lagama qaado ilaahay hadduu wax dheeraada adiga ku siiyey aqoon ha noqoto xoola ha noqoto masab ha noqoto waxay doonta ha noqoto waa inaad u fahamtaa inay tahay inaad shukriga badsato ama se waa inaad u fahamtaa qadiyadda labaad oo ah in su-aashu adiga aakhire kugu badatay waayo ka xoolaha le iyo kaan xoolaha lahayn maxaa u dhexeeya aakhirada 500 sannadood bay kala dambeeyaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idan kahratu las'ila ardayga haddii hal xaashiyo imtixaana lagu siiyo haddii 20 xaashiyood lagu dhiibo 20 haddaad faraxda ka war yacni ka xaashida la siiyey ka 20ka la siiyey waa as'ila uun as'ilo badani wax lagu farxa maaha walidaalika inaad tawaaducdo haddaad xoola haysato haddaad aqoon leedahay haddaad magac leedahay haddaad maamuus leedahay haddaad aftahantay wax kasta ahaw khalqiga ilaahay agtoodana mutawaadic ka noqo ilaahay agtiisa iyo kitaabkiisana tawaaduc la kaalay صلى الله على نبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين